بسم الله الرحمن الرحيم. سو دواada college kan Nile Technology College sida shaashada idin kaga muuqata waxyaabaha lagu baran doono college kan waa arrimaha teknolojiyada oo dhan course-ka in lagu barto ayaa loogu talagalay ardaydan ay ka faa'iideystaan in kastoo jecel qof kastoo jecel teknolojiyada boqolkiiba 80 waa practical inta badan wuxuu u bannaan doonaa wax practical ah oo toos loo sameynayo ayuu u badan yahay college-kan maanta waxaan baran doonaa applicationada computerka ayaan rabnaa inaan wax ka ogaano ugu horeyn waxaan baranaynaa maanta Microsoft Word waxa loo yaqaano ayaan rabnaa inaan barano waxaan ka bilaabaynaa practical ayaan baranaynaa waxaan ka bilaabaynaa Microsoft Word ardayga markuu u baahan yahay waxa laga rabaa Microsoft Word horta muxuu ku qabanayaa its application waxa loogu talagalay in lagu abuurto documentiyada documents maxaa loo yaqaanaa document waxa loo yaqaanaa waxa la wixii information kaaga iyo datooyinkaaga iyo qoraaladaada iyo report-kaaga meesha aad ku qoran karto ayaa document loo yaqaanaa meeshaas waxa lagu abuurayna waxa loo yaqaanaa Microsoft Word ayaa lahaa MS Word dadka qaar ay u yaqaanaan markaan rabo inaan soo kiciyo Microsoft Word qaabkeen ku soo kicinaya wadooyin badan ayaan mari karaa soo kicinta Microsoft Word-ka waxaan taabanayaa waxa loo yaqaano marka koowaad waxaan isticmaalayaa ama soo kicinayaa Microsoft start button-kaas hoose oo ku yaala taskbar-ka ayaan ku dhufanayaa marka koowaad waxa ay soo baxayo menus-kan ayaa ay soo baxayo meeshaas waxa ku qoran hoose all programs ayaa ku qoran all programs-ka ayaa ku dhufanaysa all programs marka ku dhufatid waxa ku soo kici doono menus-ka oo programyada oo dhan oo computerka ama aad ku shubatay oo kale applicationadaas oo kale ayaa ku soo kacayo applicationada markay ku soo kacaan kaad all program dhahdo applicationska ay ku soo kacaan meeshana waxa ka raadin kartaa Microsoft Office ayaa ka raadinaysaa Microsoft Office ayaa ku dhufanaysaa dan waxa ku jira meeshaan Office-ku wuxuu wato dhan anaga maxaan u baahanahay Microsoft Word ayaa u baahanahay farshano badan uu leeyahay hadda waxaan isticmaalayna waa 10 farshan kaartin waa isticmaali kartaa wadadaas ayaad ku gali kartaa ama ku baari kartaa maxaan kaloo sameyn karaa isla waxaan ku dhufan karaa start button inta ku dhufto waxaan dhihi karaa meeshaas hoose ay ku qoran tahay searching-ka ayaa waxaan ku qori karaa wax loo yaqaano Word ama Microsoft Word meeshaas ayuu ka soo baxayaa waa u jeedaan labadaba waa sameyn karaa mar alla markaan ku dhufto oo Microsoft ay soo kaco Microsoft-ga markuu ku soo kaco Word noocan ayuu muuqanayaa this is the documents warqadan ayaa loo yaqaanaa cadaanka ah ayaa document loo yaqaanaa waa warqada loogu talagalay in wax lagu qoro warqada wax loogu talagalay in qoraalada lagu sameeyo ayaa waxa qof kasta wuxuu u baahan yahay meesha uu ku qoranayo intaana gelin waxaan u kala qaybinaynaa markuu saan u soo kaco documentiga waxaan u kala qaadaynaa 3 qaybood qayb waxaan leenahay qaybtaas koro quick access toolbars ayaa loo yaqaanaa waa meesha si fudud aad uga gali karto menus-ka aad u baahan tahay qaybtan kore oo ka bilaabanaysa home inserting-ka waxa loo yaqaanaa 7 ribbons ayaa loo yaqaanaa 7 xabay ka kooban tahay waa home insert page layout reference mailing review iyo view waxa loo yaqaanaa 7 ribbons ayaa loo yaqaanaa qaybtan waa qaybta formatting-ka mid kaste todobadaas aan soo sheegay oo ribbons-ka ah mid kasta wuxuu leeyahay group tusaale ahaan home markaan ku dhufto wuxuu yeelanayaa groupkan waxa loo yaqaanaa clipboard kan waa pointing kan waa paragraph kan waa style kan waxa loo yaqaanaa editing clipboard waxa loogu talagalay mar alla markaa u baahan tahay copy-ga ama cut-ka ama format painter-ka laba qoraal oo kale markaa rabtid mid kamid ah iyana midka kale same aad ka dhigtid oo kale groupkan pointing-ka waxa loogu talagalay qurxinta farta oo dhan waaye sida farta in loo sameeyo cabirka size-ki farta in bold laga dhigo italic laga dhigo magac farta in la siiyo kalarada meesha laga bedelayo kan paragraphs ayaa loo yaqaana kan stylus meeshan waxa loo yaqaan editing mid kasta oo marka todobada xaba kamid ah
dhammaantood wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano groups ayuu leeyahay dhammaantood group ayay leeyihiin okay insertion oo kale markaan ku dhufto insertion oo kale markaan okay mid kasta marka wuxuu leeyahay groups mid kastana wuxuu leeyahay shaqo gooni ah sida farta iyo qoraalada loo sameeyo sida wax loo qoro sida wax loo qurxiyana waa baran doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo channelka online-ka ayaan ku baran doonaa insha Allah waxaa marka nagala soo xiriiri kartaa shaashadeena wixii more information ah waxaa kala soo xiriiri kartaa channelkeena shaashada waxa kugu qoran oo Nile Technology College online classes ka ah ayaa nagala soo xiriiri kartaa sida website-keena iyo telefoonadaas ayaa nagala soo xiriiri kartaa intaas in ka faahfaahsan waxaa lagu bartaa college-kan online-ka ah aad u mahadsantahay